بسم الله الحمد لله aad u mahadsantahay xasan anigoo u soo laabo doona jawaabta su'aashaas jawaabteeda ayaan waxaan rabaa inaan wax yar ka hormariyo oo ah horta waxaan u hambaleynayaa dawladda galmudug noo idmatay shaqadan oo ugu horeeyay madaxweynuhu iyo dhammaan golaha wasiirada iyo baarlamaanka oo si wanaagsan aan wada shaqayn u leenahay runtiina dardar gelinaya dhismaha ciidanka daraawiishta qaybna nagala qaata gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka wasaaradda amniga wasiirka wasaaradda maaliyadda dhammaan iyo golaha wasiirada mar labaad waxaan u mahad celinayaa wasiirka maaliyadda oo runtii dhammaystiray ama ka shaqeeyay siday u heli lahaayeen ciidankaasi daraawiishta xuquuqdoodii dhammaanna mushaaraadkoodii siiyey aad iyo aad ayaan mar kale ugu mahad celinayaa intaas kadib markii aan u soo laabto su'aashii jawaabteeda sax weeye dagaalku uma bilaaban horta hadda annaga iyo qolada nabadiidka argagixisada ah sidaad ogtahay hadda deegaanka bacadweyne deegaan ku dhow oo la yiraahdo Camaaro waxay qabsadeen hadda ka hor xilli waxaan u malaynayaa 5tii bishii tobnaad 2016 ciidamada daraawiishta galmudug iyo ciidamada xoogga dalka ay iskaashanaya waxaan ku duulnay ama aan ka dib uga qabsanay 13kii bishii tobnaad 2016 toban maalmood bay fadhiyeen ilaa xilligaa way ka maqnaayeen dagaaladu waxay in badan ka socdeen deegaanada caad El Abdi Bilxun Baraakfari areadaas oo ay ka socdeen 16 17 18 19 hadda ayuu dagaalku soo gaaray in areada bacadweyne iyo deegaanada u dhow bacadweyne hadda qudheeda ayaa kuma hoydaan afar wiil ayaa tagta si sahama oo dhuumalaysi ku tagaan meesha oo geedaha leh oo dhinaca hawdka ka xiga oo koonfur bari bayna ku maataan oo galaan waa meel ay eeganayaan ciidamadana kor degan yihiin oo la isku hayo mooyaane ma aha hadda lafteeda meel ay si buuxda uga hayaan shacabkii deganaan dhammaan wayba ka barakaceen oo hadda wax joogo shacab ma jiraan iyo cid meesha lagu maamulayo marka waa meel uu laba ciidan isku farasaari doonto meeshu hadda horena isugu farasaareen dadka deegaanka oo ciidamada dawladda kaashanaya iyo ayaga marka intaas kaliya ma ahan waxaan rajaynaynaa inaan ceelbuur iyo ceeldheer iyo mataqaana degmooyinka asalka oo galguduud iyo mudug ay ka haystaan ka saarno kaba hadli mayno meelaha yararka faraca oo hadda ay soo gaareen iyadooda iyo ayaga fikirkooda waxa ka bedelan ayaan anaguna ka ogno waaqica ah waxaan ognahay dadka deegaanku in ay diyaarsan yihiin maca deegaanada ay soo dhaafeen hadda oo ayagu isleeyihiin gadaashiina jiraan in dad badan oo dawladda taageersan qoryahoodana haystaa joogaan wax bedelka iyo isbedelka aan sameynaynaana uu qayb ka yahay ciidamada hortooda ka imaanaya kaliya aysan ahayn istaraatiijiyad ahaan ayaga ha ku qarween ama ha ku riyoodaan ama ha isu sheegeen inay gurceel iyo dhuusamareeb aan kala jarayna hobyo iyo waxaan kala jari doonaa gaalkacyo iyo waxyaabahaas riyada ah way dhici kartaa inay ayaga wax isku aadsadeen ay tahay laakiin ma ahan mid suurtagelaysa waxaan hor istaagi doonaa ciidamada daraawiishta oo kaashanaya ciidamada kale oo walaalahooda sida militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda oo u diyaarsanayeen ciidanku laakiin tilaabaqaadkii howlgallada bis weeye waxaan loo dhiman ayagana insha Allah hadda waa bilowna wuxuu ku yimaadaa dhamaystirka iyo markaas sahamada ciidamada iyo shaqada ay qabanayaan waa markasta waa wax ciidamada u gaar ah laakiin dagaalku ma socda iyo ma socdo xabaddu inay dhacaysa kaliya ma dagaalku soo socdo ciidamadu hor fadhiyaan leysna hayo waa wax xilli walba bilaaban kara laakiin istaraatiijiyadan wax ku qabsanaynaahu waa mid annaga gaar noo ah bixisba wax la yiraahdaa kamid maan istaraatiijiyadeena waayo waxa dib u baxa ama wax iska bedelaan waxa weeye dadka oo ma garanaysaa anagu ma ahayn ciidan oo ciidamadii AMISOM oo ciidamada dawladda Soomaaliya gacan siinayay waxaana ciidankii Soomaaliyeed deegaankii aan ka soo jeedno Soomaaliyeed ama galmudugna way meesha aan ka howlgalayno annaga marka position aan fariisano dib uga ma laaban doono insha Allah horena uga ma laaban dagaalkaas qof kasta ma mooga waa dagaalka waa looga guuleystay waan ku jabeen bariga kaliya ma aan ceel dheer dhowr mar yimaadeen oo ogtahay argagixisadu inay qaraxyo dhigeen inay ku laayeen askar iyo rag birmageyda aad ugu wanaagsanaa ciidamada dhexdooda dhacdooyinka laamiga marmar xataa waa ka dhaceen laakiin hadda wixii xilligaas ka dambeeyay gacan biraha lagu qabtay aad baana looga fogeeyay hadda caasimadda iyo agaarkeedu seef waay ciidamada dawladda iyo dhammaantood ciidamada maamul goboleedku ma ahan istaraatiijiyadooda sanadhaqa iyo laba dulle iyo bacadweyne kaliya ma ahan kala waa meelihii dhacdooyinka ka dhaceen ugu dambeeyay mooyaane istaraatiijiyadu waxay tahay ama hadafkeena uu yahay amniga inaan ku soo celino
dadka dhowr iyo 10 sano dulman ilmahooda booshxabadka la barayo oon jaamacada ka jirin oo aan ka jirin caafimaad sida ceelbuur galhareeri ceeldheer xaradheere oo aan dareemayno in carruurtooda waxbarasho iyo caafimaad midna helin oon ognahay inaan waxgaradkooda iyo cuquushooda iyo culimadooda u madax bannaanayn waxa deegaankooda ka socda inaan xoreyno oo dib looga xoreeyo weeyaan maayaane ma ahan inaan meeshan yartaahoo hadda ay marmar afarta wiil u soo dirayaan ama biitayim ka soo tuurayaan ma ahan halganku iyo dagaalku meeshu ka socda waa hadafkeenu waa ka dheeriya annagoo rabbi kaashanayna waxaan rajaynaynaa in ay noo fududaato waxa ay nooga dhigan tahana waa waxa ay Soomaaliya oo dhan uga dhigan tahay wax weyn waaye oo dadka dhammaan Soomaali 18 gobol ay ku farxi doonaan gaar ahaan labada gobol oo maamul goboleedkan uu ka dhisan yahay markii laga hadlayo ciidamadu waxay isugu jiraan saddex qaybood waxay tahay qaybna waa intelligence waa qayb sirdoonka u qaabishanaan doonta ciidamada ama u qaabishan qaybna waa qayb maxkamadihii iyo sharcigii la shaqeynaysa iyo mataqaana oo booliiska kaleeto oo saldhigyadii dadka in dib loo furo booliiskii la tago si xataa argagixisada lafteeda cadaalad loogu sameeyo annagoo ma doonayno argagixisada xataa inaan ku xadgudubno waxaan rabnaa qofkii la qabto oo mataqaana wiilasha Soomaaliyeed la qalday inuu helo maxkamad cadaalada inuu helo soo dhaweyn inuu helo kii la dilaya xataa xukun cadaalada in lagu dilo midka dagaalamayana la iska celiyo la dilo aslan dadka ay haysteen in laga dhaqo maarta oo ay helaan maxkamado iyo sharci kala dambeyn inay ku diirsadaan wax aysan waayahoodii arkin ama kuwa markii kadib intay haysteen dhashay oo qaangaari hadii jiraan inay dawladnimada mataqaana u jadbaysan yihiin aan dareemeyn anagu maba gaarin hadda deegaanadaas oo waxa ay qabaan wali ma ogin sida hadda ceelbuur iyo eriyadaas oo kaleeto xilliyo hore way jirtaa ciidamo iskaashanayay oo mataqaana sidii ahlusunna wal jamaaca hore iyo ciidamo Itoobiyaan ah xilliyadaasna waxa dareemay hadda wax badan inay hadda isbedeleen hadda ciidamada dhammaan galmudug ka howlgalaya ama ha aadeen 22aad ama ha aadeen nisa ama ha aadeen booliis ama ha aadeen daraawiish qaybta booliiska militarigeeda guud ahaan waxay yihiin dad deegaanka laga qarameeyay oo ciidan oo ah waana dadkii mid kasta hooyadiis ama aabihiis ama walaalkiis ama midka inta degan intana waa degan yahay marka wax ku baleesa oo ay ka qabaan ama ay kala qabaan ma jiro waa dad lagu soo dhaweynayo mashxarad waa dad assembly mataqaana in badan oo kamid ah dadka shacabka oo argagixisada haysto iyo shacabka hadda meelaha xorta dawladda jooga dad wada dhashay xiriirna la waay marka ma ahan dad cadow u arkaya ciidamadan ama ka jeclaysanaya cadowgaas taas waxaan isleeyahay meesha kuma jirto xuduudaha difaacooda iyo dagaalka ayaga hormudka ah ama qaybka ah daraawiishta ciidanka la yiraahdo iyo ciidamada militariga na inta xogga dalka ba iska leh waad ogtahay ilaa dagaalkii 77 walow aniga xilligaas aanan ciidan ahayn ama jirin laakiin taariikh ahaan waxaan hayaa in oo ay ahaayeen laba ciidan oo iskaashata sharciga daraawiishtuna waa sidaas inuu militariga la howlgalo oo wasaaradaha amniga galmudug iyo lagu warbixiyay magaranaysa Puntland iskaashiga nagala dhaxeeya Puntland waa mid walaaltinimo waa mid darisnimo intaan ka ogaay iskaashi ciidan waxaan ka ogaa aniga ama aan ka fahamsanaa wuxuu ka ahaa ciidamada isku dhafnay oo booliis iyo isugu jira military oo ciidamada xasilinta gaalkacyo ayaguna si habsami u shaqeeyaan aniga ma ogi marka heshiis ka dambeeya oo aan isku kaashanayno ama aan gurmad ku weydiisan laakiin hadda shaqaqooyinkan argagixisada iyo ku soo dhawaashaha deegaanada mudug qaybo kamida hadda ciidan doonasho anaga ka talis ahaan daraawiishta aan ognahay oo Puntland ciidan u raadinay ma jiro baahi weyn oo hadda aan ka raadinaynana ma jiro waayo atomic bomb ay hadda Puntland lagu taageerayeen ma ogin waxa kale oo aan sidanana anaga uga awood badan shabaab marka iskaashi noocaas oo shabaab anaga hadda uga u ciidansanayno Puntland ama Hirshabeelle labada daris bamidna wali anaga xageena kama soo bixin ka talis ahaan wasaaradaha amniga iyo wixii siyaasadda ama madaxda guud ay gaareen iyo labada dawladoodna waa howl ayaga markaas u gaar laakiin waxa naga quseeya waxa weeyaan ka talis ahaan hadda inaynan anaga wax ciidana oo aan ognahay Puntland ay nagala qayb qaadanayso dagaalka mudug marka koobaad ilaahay uga baryayaa in dhibaatada ilaahay ka dulqaado cusriga iyo dhibka ay inta badan ku sugnaayeenna insha Allah ilaahay uu kana dulqaadaya annaguna sabab aan noqon doonaa dadkana waa sidaas aan ku sheegay oo markii culays uu hayo adigu qof dhagax uu dusha ka saarnaa haddii aad ka rido maxaa iga tuurtay kuma dhahayo marka su'aashaas saas isaga dhantahay in dadkaas ay yihiin dad dhibaato ay qoorta ugu jirtay una hambaliyay doona cidii ka dulqaada